raxiim halkan waxaan kusoo gudbin doonaa safxidkeennii soo socda barnaamijkeennii waddada aynu ugu talagalnay. Marka halkan waxaan kusoo gudbin doonaa xisaabteennii wixii saad ku soo dhacay iyo wixii akoonka dahabshiil ku soo dhacay ee lagu soo diray. Marka totalka guud iyo lacagtaynu haysano ayaan caawa kusoo gudbin doonaa. Haddaan ku bilaabo totalka lacagta saadkeena ku soo dhacday waxaa noqonaysaa 4,708.96 akoonkeena dahabshiil lacagta lagu shubina waxay noqonaysaa ee lagu soo dirayna waa 18,522. marka totalka guud ee lacagta aynu haysano aynu wadada u ururnay muddadii soo socotay dhowrka bilood ahaa waxay noqonaysaa 43,250.96 lacagtaas oo ah lacagtii labadeena akoon ku soo yeetay isla markaana aynu doonay inaynu ku wareejino qolada wadada. marka dhammaan lacagtaasina waxay noogu wada jirtaa akoonkeena dahabshiil ayaa lagu wareejiyay. dhammaan kolley lacagta haddii qof lagu soo hagaajiyo ama xawaalad kale ku soo dhacdo wax la sameeyay in ama saadka lagu soo shubo ama isla dahabshiil xawaalada akoonkeena lagu shubo ama lagu wareejiyo. marka dhammaan lacagaha soo dhaca xawaalad kale ku soo dhacaan ama qof lagu soo wareejiyo waxa ku kala dhacayeen labadeena akoon aynu kala leenahay saadka iyo keena dahabshiil. alxamdulillahi rabbil caalamiin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan gurmud relief meelay joogaanba. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. xaqiiqatan way idin muuqataa xisaabtii sida uu Cabdullaahi idin sheegay. waxaan doonaynaa insha Allah ta'ala in aynu halka uga sii dhaqaaqno oo wixii kale aynu qaban lahayn xisaabtu waa saa idin sheegay. waxay u qaybsan tahay wixii akoonka ku soo dhacay iyo wixii saadka ku soo dhacay. waxa akoonka ku soo dhacay kale laba qaybood buu noqonayaa. qaybo anagu aan ku shubnay inta si gaaran loogu soo diray iyo qaybo idinku aad ku shubteen bay noqonayaan. waxa inta weheliyo kale iyaguna saddexaad lacagayowgii aanu ka qaadnay ururada qaar oo iyaguna xisaabtoodii iyagana ay inoo qoran tahay inoogu jirto totalka inoogu jirto. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxa weeye gaar ahaan hablaha ururada hablaha ee sida fiican isu xilqaamay sida ururka Samooda Group, ururka Taysiir, ururka Dalaad, Allahumma salli ala Muhammad Ibrahim Cilmi oo isna ma garanaysaa lacag si gaar ah isna u soo diray oo ka soo horiyay ree Oslo. aad baan ugu mahadnaqayaa iyo inta aan halmaansanahay iyagu ma garanaysaa lacagtooda ay ku jirto meeshaba. ducana waan idin soo diraynaa insha Allah ta'ala. lacagtaas la idin sheegay iyo lacagayo kale oo iyaguna si gaar ah u maray qolada wadada laakiin lacagayowgii gurmad ay ka howlgashay kamid ah waxay noqon doonaan lacagayoga aan iyagana xisaabta aynu ku darsan doono insha Allah ta'ala. total ahaan lacagayogaasi waa lacagayoga aan idin sheegi doono ama aan iclaamin doono inaan wareejinay insha Allah ta'ala iyadoo tiradoodu marka ay xadidan tahay markay lacagta kalena soo gaadhay ee qolooyinka wadada sida kale ugu tagtay. aad iyo aadna u mahadsantiin. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qaa'idina wa qurrata a'yunina. alhamdulillah ilaahi baynu marka koobaad u mahadnaqaynaa nicmadu ilaahayna siiyo nicmatul islaam nicmatul diin. alhamdulillah ayuu ilaahay ugu mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala. waxa kale ilaahay ugu mahadnaqaynaa ilaahay madarka khayrka qabo ilaahay uu inoo shubay oo wadanka ilaahay barwaaqay inoo dhigay. inta kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa walaalaha muslimiinta ee ehelkeena ah ee maaragtay maxay haday runtii mar walba heeganka u ah inay dadkooda caawiyaan haday wadadii tahay haday maxay ihsaanka sii horeeyay ay tahay. ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo. inta awlaadda ilaahay awlaadda ha u barakeeyo. intaan awlaad lahayna awlaad khayr qabta ilaahay ha siiyo. ilaahu hablaha iyaga noo barakee habla fiican oo gurmadka ku fiican oo tolkood iyo maxay haday ehelkooda jecel weeyaan. ilaahu hablaha noo barakee. ilaahu dhalinyarada noo islaax. walaalaha qurbaha jooga intii awlaad ku haysa ilaaha awlaadda fitanka iyo macaasida ilaahu uga ilaali. ilaahu wada raxmaan uga ilaali. intaan awlaadnahayn awlaad khayr qabta ilaahay u sii. inta dhakhtarada jiifta ilaahu caafimaad noo sii. inta maxay ahayd miirka iimaanka ka qaadan ilaahay uu noo soo celi. ilaahu albaabada khayrka noo fur. albaabada sharkan ilaahay uu naga xir. ma dooran naqaan ilaahay uu noo dooro yaa rabbal caalamiin. aad iyo aad baan walaal idinku soo ducaynaynaa. aad baan idinku faraxsanay. ehelkayagii baa tiin jiirkayagii baa tiin ducaa ul qayb waa mustajaaba. qofka ka maqan oo ku duceeya ducadiisu waa maqbuula.
ويدك نجا سو فرحيي ويدك تلكي نجا سو فرحنايا ويدك كقيب قادنايا maxay haday gurmadkii wadada alxamdulillah waa fadli ilaahay iyo karaamo ilaahay widi siiyay weeyaan gaar ahaan gurmad qolada gudaha joogta iyo qolada qurbaha joogta alxamdulillah waa arrin aad loogu farxo wala la waydii soo duceynina ilaahay arrimihiina khayrka ha idin waafajiyo ilaahay albaabada khayrka ha idin furo waxa lagu duceeyo waxa ugu qaalisan ilaahay jannatul firdaws al'ala ilaahay uu inagu kulmiyo oo xawdkii nabi maxamed ilaahay naga waraabiyo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu inaga dhigay inta uu nabi maxamed u shafaaco qaado ilaahay ha inaga yeelo oo inta ilaahay aragta ee daawata ilaahay ha inaga dhigo sadaqada aad bixinaysaan wixii aad u niyooteen hadaa waalidkiina aad u niyooteen hadaa ubadkiina aad u niyooteen hadaa idinku isku niyooteen qof kasta wuxuu sadaqada uu niyoodayna ilaahay ha siiyo oo ajri iyo xasanaad ilaahay siiyo subxaanahu wa ta'aala hal jazaa'u al-ihsaan illa al-ihsaan wanaagad bixiso ilaahay wanaagu buu kugu abaalgudaya ilaahay idinka farxiyo sida tolkiina uga soo farxinaysaan subxaana rabbika